Ma aaminsan tahay in wado waliba oo adduunka ahi ay ku dhammaato Roma? Waxaa jira hadallo badan oo dadku ay adeegsadaan oo ah in wado waliba ee adduunka ahi ay ku dhammaato Roma. Haddaba maxaa ka jira warkaasi? Boqortooyadii Roomaanka ee xukumayay qarniyadii dhexe ee miilaadiga ayaa dadaal u gashay inay dunida oo dhani wada qabsato si ay u hoos yimaadaan maamulka dunida markaa. Kolkaa ayay boqortooyadii Roomaanka dhiseen wadooyin ay u adeegsan lahaayeen ciidamadii oo markaa weerar ku ahaa dacallada adduunka oo ka baxayay caasimadda Roma. Sidoo kale wadooyinkaasi waxa ay fududeynayeen isu kala gooshidda wadamadii markaa ku xirnaa boqortooyadii Roomaanka, taasoo markii dambe wadooyinkii la dhisay ay ku dhammaanayeen caasimadda Roma. Si loo ogaado waqtigan casriga ah, waxaa ka jira hadalkaasi ah in wado waliba ay ku dhammaato Roma ayaa kooxo baarayaal ah waxay isticmaaleen kaamiradaha meelaha fog wax ka sawira. Baarayaasha ayaa ka ogaaday sawiradii ay qaadeen in wado waliba ee qaaradda Yurub ka mid ahi ku dhammaato ama ku idlaato Roma. Khubarada waxa baaraya ayaa bartilmaameedkoodu ahaa in ka badan ilaa 400,000 oo goobood oo ka tirsan Yurub idilkeed, waxa ayna gebi ahaanba ku dhammaanayeen caasimadda Roma. Haddaba marka la eego waqtigan casriga ah, caalamkuna sii horumarayo kana sii ballaaranayo sidii hore, ma jiro wadooyinka oo idilay inay ku dhammaadaan caasimadda Roma. Sababta ugu weyn ayaa ah in qaaradaha adduunka badankood ay kala xadnibaan badaha ku teedsan. Waad ku mahadsantahay daawashadaada.